waxaa sababay ru'aantii dowladihii iska kala dambeeyey waddanka dowladaha ka dhalatay dowladihii waxay bilaabeen runtii in ay manaahijtii iyo wixii la hagaajiyo waxaa la yidhi balsaan ayaa lagu fiirsanin runtii marxalad badanaa lasoo maray mar waxaa la sameeyey in manhajkii carabiga ahaa oo iskuulaad kala duwnaa ay dhigayeen in lagu guuleysto horta manhajkii carabiga naftigiisa in la midayo waataan kuu sheegay in manhajkii ii sheegay imaaraadka manhajka meel meel uu ahaa marka waxaa lagu guuleystay in ugu yaraan manhajkii horta la mideeyo oo manaahijtii carabiga ahaa naftirkooda hal xaba loo sameeyo daladiyaha inta laisku geeyey ayaa wax un ay soo saareen manhajkaas waxay noqotay wax guud in la helo oo iska carabi ha ahaadaba kadib waxaa bilaabatay in si tartiib ah ingiriishkii loogu wareego kadib marka si saas loogu waday waxaa dhacday in oo dowladdii oo hadda ugu dambeysay in la sameeyo la mideeyo manaahijta laguna guuleysto runtii in lasoo saaro manhaj oo soomaali leh oo soomaali ka tarjumaya soomaali sida dugsiga hoose ka hadda la dhigayo waaye kaan ka hadlayo dugsiga hoose iyo dhexe in markaasi ardada in lagu baro af soomaaliga kadibna sare markuu soo gaarana in english loo bedelo dabcan maadada tarbiyada maadada carabiga waa sideeda luqada ingiriishkana waa sidiisa laakiinse inta kale ay soo hartay maadadooyinka kale sida culumta sayniska aan iraade social scienceska ama cilmiga bulshada intaba marka waxay noqotay in markaa lagu dhigo afka soomaaliga runtii wax aad u fiican ay ahayd in manhaj noocaas oo ku nidaamsan waxaan leenahay aad ugu mahadsan runtii dadka arrintaas qabtay oo ku dadaalay manhajkaas saas ka dhigay marka aad u mahadsan yihiin maxaa yeelay hadda waxaa la helay nidaam sax ah waxaa la wadaa wadadii saxda ah wixii intaa ka dambeeyana insha allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa intaa in ka fiican in lasii gaari doono luqadda ingiliishka wax iska bedeli karo ma waa english waa luqad ahaan loo baranayaa laakiin waxaa laga hadlaya waxay tahay waagi hore culumta waxaa lagu baran jiray tusaalahaan physics oo kale alfisia la jiray fisia carabiya lagu qaadan jiray tusaale ahaan tarbiya yani biology axyaa kiimiyaiya maadada chemistryga riyaadiyaad maadada maathki so marka sidaasay ahayd macnaha waxaasoo waxay ku bixi jireen nidaam carabiga ku bixi jireen waxaa laga hadlaya waxay tahay wixii dhana marka waxaa loo rogay english luqadda ingiliishkana way jirtaa carabigana luqad ahaan waa u jiraya af soomaaliga naftarkiisa luqadda af soomaaliga ardada la bara iyagana way jirtaa marka sidaas ayay waxay yihiin